دليل بدنا والله يا نضل اللي قرأت كينو هاللي دليل ذا وحا كمل international community ودوقت إلى security council كأريك الله هاللي قراره وين بلغان قاري لغا سو ساري investigation team بالربي إن لفهم قريو أو أريك مبارا وحالو بعدي وقلاشيها الدولة الفدرالية الصومالية waxaan soo xasuustay xasan dhaqameed isla u dhaqmay oo khaatumi SSC oo la dhaqmay markaan arkay gabay waxa ku jirtay daaroontii kacdaba waa idinkii gooyay reer dalale waayahay khadka waxa haatan si toos ugu jira Dr. Ali Darwish gudoomiyaha ururka Jubaland Intellectual Council fadhigiisa dalka Mareykanka Ali daljir ku soo dhawo marka hore waa dhawaay Maxamed baahda daljir aad baan u salaamayaa iyo dhageystayaashoodaba aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Maxamed waayahay xaaladda gobolka Sool iyo halganka SSC Khaatumo waa la socotaa marxaladii kala duwanaa uu soo maray halganka gobolka Sool ee looga xoreynayo maamulka Somaliland bal halgankaasi marka hore sidaad u aragtay aad iyo aad ay u mahadsantahay Maxamed su'aasha waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan halganka iyo mataqaan isfadhiga gobolka Sool ka jira waan ognahay muddo hadda 7 bilood ayuu madaxa geliyay waxaan isku hor fadhiyaa maamulka soo duulay iyo maleeshiyadka ka soo duulay gobolada waqooyiga galbeed iyo dadkii deegaanka u dhashay shacabka ee SSC Khaatumo ayagana iska caabinaya go'aanka ay gaareen runtii waa go'aan aad iyo aad masiiri u ah dadka deegaanka cuqaashooda isimadooda waxgaradkooda siyaasiyiinta iyo jamaahiirta iyo ciidamada runtii xaquuqdirka ah ee difaaca ku jira intaba aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya hawsha adag iyo go'aanka ay qaateen iskaga kicinayaan dulmiga qolada ku dul fadhida oo dulmiga inay iska rogaan go'aanka ay ku gaareen aad iyo aad ayaan u mahadinaya waan ku hambalyeynaya runtii waana taageersanahay Soomaali oo dhan waa taageersan tahay waana wax xaq ah aad baana ugu mahadinaya runtii meel fiican buu hadda u marayaa marxalado kala duwan ayuu soo maray runtii waan garanaynaa oo mar bay dhagaxa tuurayeen dadka maantana difaacooda adkaysteen cidi kama awood badna runtii moralkooda iyo isku tashigoodana aad iyo aad ay u fiican yahay wayna ka adkaanayaan qolyaha gardarrada ku soo duulay ee raba inay dadka deegaankooda mataqaan ku maamulaan si khasab ah way ka adkaanayaan insha Allah ilaahay idinkii waana runtii waan hambalyeynaya dhammaantood waayahay caliyow garaad jaamac ayaa hadlay oo Nairobi ka hadlay wuxuu dhaliilay dawladda Xasan Sheekh isagoo arrimo badan oo shacabka ka qarsoonaa daha ka rogay maxaa kaaga baxay hadalkii garaadka waa su'aal runtii u baahan in la isweydiiyo dadka Soomaaliyeed halgankan SSC Khaatumo taageersan iyo reer SSC Khaatumo ay u baahan in mataqaan loo bayaamiyo anigu waxaan qabaa dalkii hore waraysiga adiga qaaday 2 bilood ka horna waan ku ishaaray arrinka runtii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay maanta jirta roolkii ay lahayd way ka gaabisay waxa inta Soomaaliyeed ee ogol halganka SSC ee taageersan ee wanaaga doonaysa iyo beesha caalamka inta waa ogyihiin in dawladda federaalka ee Soomaaliya xuquuqdii dadka ay lahaayeen sidii laga rabay inayan u maamulin una jeedin inay u garb istaagto daliil badan waa la hayaa not only garaadkeena waa hadlay daliilada waxa kamid ah international community wadogta ilaa security council ka arrinka looga hadlay qaraaro waaweyn baa laga gaaray laga soo saaray investigation team baa la rabay in la form gareeyo oo arrinkan baara waxa loo baahday ogolaashiyaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waa la waayay waxa dhacay in niman isima ah oo aad iyo aad aan u ixtiraamayo oo isma Soomaaliyeed ayaa ka baxay xamar oo isxilqaamay oo dawladda federaalka naftigeeda ay isu muujisay in ay taageersan tahay oo arrinkan damacay inay u kala dabqaadaan nabadgelyada lagu soo dabaalo deegaanka nimanka ku soo duulay si nabadgelyo loo raro oo la saaro tagay oo Garowe tagay oo Hargeysa tagay oo xamar ku soo noqday adduunka ma dhicin team dib u heshiisiin ama team dhexaadin oo intuu dhexaadintii galay haddana aan go'aan soo saarin waxaan qabaa inay isimada iyagoo aad iyo aad u sharfan inay go'aan ka soo saarin wixii ay soo arkeen iyo wixii ay kala kulmeen labada dhinac ay u tageen
inaan go'aan ka soo saarin ciddi gardarneed waxaa sabab u ah dowladda federaalka Soomaaliya oo diiday in qaraarka go'aanka ay simada ay soo saaraan waxaan ognahay mataqaan naagtii maalintii labaad hadashay United Nations-ka u fadhiyay Soomaaliya hadalkii ay ku hadashay dowladda federaalka Soomaaliya wax inaba ha yaraatee iyadoo og dadka lagu laayay gobolka Sool inta ay tiradooda leeyihiin dadkii ku dhaawacmay tiradooda inta ay leeyihiin hadalkii ay ku hadashay qofta haweeneyda ah ee qadafka ahaa wax inaba ha yaraatee go'aan ah ama daliil ah oo ay ka soo saareen ma jirto dowladda federaalka marka anigu waxaan qabaa garaadku waa ku saxan yahay wuxuuna asiibay weli waxaan qabaa anigu in mataqaan laga daahay baahed col lama yaraysto waqti hore in arrinkan go'aankiisa dadka reer Khaatumo inay go'aan ka gaaraan waayo adduunka dunidii hore islaamka uu xukumi jiray macnaha daarul islaam iyo daarul harbi wax la yiraahdo jiray gaaladuna markii dambe waxay ka qaateen arrinkaas mataqaan ay ka barteen wax la yiraahdo either with us or with the enemy wax dhexaad la yiraahdo ma jiro dowladda federaalka inay dadkan SSC Khaatumo ee halganka Soomaaliya halganka ku jira ee midnimada Soomaaliya u dagaalamaya inay taageerto bay ahayd haddii laga waaytaa macnaheedu waxay ahayd in terms of war in laga soo saaro macnaha halku dhigid dagaal in laga soo saaray ahayd dowladda federaalka oo la cadeeyo positionkeeda dadkaana inay go'aan ka gaaraan bay ahayd weliba waxaan qabay isimada qayb kamid ah ayaa waxay tageen meesha la yiraahdo Muqdisho muddo ay ku maqnaayeen way soo noqdeen waxay soo arkeen kulli dabcan waa rag odayaal waaweyn oo meesha tagay waxay ay soo arkeen si cad inay dadka ugu sheegaan bay waxaan soo xasuustay Xasan Dhaqameed isla u dhaqmay oo Khaatumo SSC oo la dhaqmay markaan arkay gabayga waxa ku jirtay daaroontii kacdaba waa idinkii gooyay reer dalale waxaad moodaa Xasan generation kasta oo Khaatumo SSC ama SSC Khaatumo oo kacayno asaga la dagaalayo oo Khaatumada horena asaga la dagaalay tan hadda jirtana asaga la dagaalaya marka runtii waa arrin nasiib darro ah waya siyaasadda dowladda federaalka ee gobolka Sool ay ku wajahayso adu qaabkeed u aragtaa iyadoo aan la ogyahay oo la cadeeyayba in garaadkuna uu sheegay in maamulka Somaliland dowladdu ay la safan tahay arintana Djibouti ay dhinac ka riixayso anigu waxaan qabaa xukuumadda hadda jirta ee dowladda federaalka ee waqtigan jirta iyo kuwii ka horeeyayba waxaan qabaa in ay iyagu ahaayeen runtii cidda kaliya ay la dagaalamaysay SSC Khaatumo in uu yirgalo rabitaankooda sababta saa u leeyahay waxa weeye waa hadda waa second generation waa kacdoonkii labaad ee dhasha SSC Khaatumo ka dhasha Khaatumadii hore waan ogeyn waxay ku soo beegantay waqti Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ahaa isaga la dagaalay oo rabitaankii dadka ay rabeen iyo wixii iyagu ay go'aansadeen u hirgelin waayay haddana waa markii labaad Khaatumo SSC Khaatumana laba dagaal oo baaba ku furan mar walba dagaal siyaasi ah iyo dagaal ciidan ah ama taqaan ama askari ah dagaalka askariga ama ciidanka waa ka isku hortaagay Soomaaliland waana kaga adkaanayaan mar walba waana ka adkaan jireen waana ka adkaanayaan dagaalka siyaasiga ah mar walba waxa kula jiray dowladda federaalka Soomaaliya ama kuwii ku meel gaarka ahaada ama mid hadda rasmiga ahaato maamulka federaalka soo maray arrimaha SSC Khaatumo isaga ayaa waxa laga rabay in uu hirgeliyo rabitaanka dadka oo aqoonsiga dalka Soomaaliya isaga haysta waxa ay dadkan doonayaan waa maamul gaar ah oo leeyahay cid aqoonsan kartaa waa dowladda federaalka tan hadda joogta oo xukuumadda hadda joogta iyo kuwii ka horeeyayba ayaga ayaa la dagaalay dagaalka kaliya ee siyaasiga ee Khaatumo SSC ku furanna waa federaalka sida in loo fahmaa muhiim ah anigu waxaan qabaa marka waa dhuumasho uu dhabarka muuqdo ama ra'iisul wasaaraha ha hadlo mataqaan iska dhigo nin SSC Khaatumo mataqaan u dhaxaya ama madaxweynaha ha hadle ama wasiir ha hadle waa dhuumasho uu dhabarka muuqdo uma socdaan uma jeedaan waana macnaha dadka ayay hadafkooda ka duwayaan marhabaabinayaan waa marhabaabin siyaasadeed waxa ay ku hadlaan ma aha wax sax ah sida in loo fahmaa muhiim ah waya aliyow xildhibaanada SSC Khaatumo dabcan gobolka Sool ka soo jeeda baarlamaanka ku matala gobolka Sool xamar ku sugan farba ku godan laftirkooda leeyahay oo ka gaabiyeen ummadii ay matalayeen gobolka Sool talooyinka aad xildhibaanada u soo jeedin lahayd ama arimahaasi aad ka oran lahayd maxay tahay maxamed doo ku soo aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa su'aasha ay weydiisay niyow Soomaalidu waxa kuma kala qarsoona waxa ay Soomaalida sheegtana inta badan at the end
waxaaba jiitantay waxun baa ka soo baxa eedeymahaas waayahan si isdaba joog ay u soo baxayeen aniguse weli ma hubo arrinkaa runtii il taxadar leh ayaan aad ugu weegahayaa waxaan kula talinayaa nimanka xildhibaanada ah ee 10 ah ee dowladda federaalka u fadhiya reer SSC Khaatumo inay dadkooda la dareen noqdaan runtii oo ay ka dhabeeyaan waxa ay sheegayaan inay dadkooda la dareen yihiin inay arrinkaa ka dhabeeyaan la tashadaan lana shaqeeyaan isimada dhaqanka guddiga 33 ee hadda loogu guuri rabo 45 ee rasmiga ah iyo waxgaradka iyo dadka jamaahiirta hawsha gacanta ku haya inay arrinkaa kala tashadaan tilaabo kasta oo ay qaadayaan danta dadkoodana inay eegaan way constituency-gooda meesha ayagu ay matalaan dhib baa haysta aad u culus oo mid siyaasi ah mid askari ahba inay dadkooda la dareen noqdaan ayna mataqaan runtii inayan daba furin xarkaha u xirxiran dadka maanta meel fiican buu arrinku u marayaa inay dadkooda la shaqeeyaan baa muhiim ah isuna soo jiidaan ayaga hadda siyaasiyiin waa dadkaan ku matala federaalka dowladda ay la joogaan federaalka ana inay la xisaabtamaan haddii golaha baarlamaanka uu noqon lahaa haddii golaha fulinta uu noqon lahaa haddii golaha madaxweynaha iyo mataqaanta ku xeendame inay ayagu la xisaabtaan ayaga ayaa tableka fadhiya miiska iyagaa jooga dadkana ku matala runtii inay si dhaba cod bay leeyihiin codkooda inay ku xisaabtamaan baa muhiim ah runtii taasaa looga baahan taasaana kula talinaya insha allahu tacaala sida ragga runtii ka soo horjeeda midnimada Soomaaliya ku aftirsada waqooyi galbeed sida ay uga shaqeynayaan xamar oo danahooda uga fushanayaan codkooda ugu gorgortamayaan si lamida inay iyaguna u gorgortamaan ayaa muhiim ah maanta dhibaatada haysata SSC Khaatumo waxa dowladda federaalka tarada joogtay kuwii horeba waxa kasbaday dowladda xukuumadda hadda jirtay kuwii horeba hogaamiyaashooda ay ka baqayaan waa codka nimanka ka soo jeeda gobolada waqooyi oo Soomaaliya baarlamaanka ugu jira oo waliba go'aan taageersan marka waxa loo baahay sidaas sidana u shaqeeyaan iyagoo midnimadooda ilaalinaya ugu dambeyn bayaan bay soo saareen madax hore xilal Puntland uga soo qabtay heer federaal iyo heer Puntlandba uu ka mid yahay Cabdiwali Cali Gaas iyo Cumar Cabdirashiid ayna kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee Puntland maxaa kaaga baxay qodobada ay soo saareen nimanka Cabdiwali iyo Cumar Cabdirashiid waa niman siyaasiyiin ah oo ra'iisul wasaarayaasha hore ee Soomaaliya Cabdiwali madaxweynihii wuxuu ahaa Puntland ee kalkii hore waa niman aan ku tuhmayo runtii aqoon iyo siyaasad intaba waan akhriyay maqaalka ay soo saareen runtii wax dhiba kuma arag anigu just waxaan leeyahay oo kaliya sida ay sheegeen inay ka shaqeeyaan jiritaanka Puntland sida ay ayagu hadda ku dardaarmeen inay ayagu fuliyaan oo ay runtii iyagu naftooda ka bilaabaan isku haynta iyo midnimada dadka reer Puntland inay ayagu ka shaqeeyaan runtii dowladda Puntland ay dhisan siday u sii socon lahayd inay ka shaqeeyaan ismaandhaafka siyaasiga ee ka jira Puntland inay ayagu qayb ka noqdaan xalka inayan problemka qayb ka noqon xalka inay qayb ka noqdaan ayaan kula dardaarmayaa siyaasaddu waa dhib badan tahay laakiin waxa muhiim ah Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa umusha u dana culugana u dana waxa shacabka dan u ah baa siyaasigana dan u ah Cabdiwali iyo Cumar waxay ugu badisaa in ay Puntland reer Puntland ay nabad ahaadaan oo jiraan maamulkooda inuu u jiro dad binaysan inay ahaadaan yaa dan ugu jirta dantooda taasi ku jirta dadka reer Puntland dantiisana taasi ku jirta markii ay taa ka shaqeeyaan intaasaan kula dardaarmay odayaasha khayrna waa u rajaynayaa inay walaal ka shaqeynayaan Dr. Cali Darwish gudoomiyaha ururka Jubaland Intellectual Council oo fadhigiisa dalka Mareykanka ayuu kaasi ahaa aad baa mahadsantahay aad iyo aad ayaan ku salaamay